Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaal kusoo dhawaada cashirkeenii labaad ee barashada xeerasha jidadka. Waxaan ka hadli doonaa cashirkan wadooyinka ka jira wadanka Jarmalka qaarkood oo laga yaabo inaad marto maalin walba. Waxaa jira wadooyin kala duwan oo loogu talagalay inay maraan gaadiidku, waxayna ku kala duwan yihiin speedka ama xawaaraha lagu soconayo, baaxadda wadadu inta ay leegtahay, masaafada lagu socon karo. Dariiq walba waxa uu leeyahay xeerar ama shuruuc u gaar ah oo u baahan inaad barato haddii aad tahay qof gaari wata ama raba inuu ku wato wadankan. Daawasho wanaagsan. Calaamadani waxay astaan u tahay autobaanka. Autobaanku waa wadada weyn ee ay baabuurtu iskaga gudbaan magaalo to magaalo, gobol to gobol. Waa wadooyinka ugu waaweyn wadankan Jarmalka, waxaana la yiraahdaa autobahn. Waxaana aad ku socon kartaa richtige geschwindigkeidka 130 km/h. waa 130 km saacadiiba. Sidaad wada ogtihiin, waxa uu wadanka Jarmalku caan ku yahay oo uu dunida kaga duwan yahay in aanay autobahnkiisa ama dariiqadiisa waaweyn aanay lahayn speed limit waxa la yiraahdo ama xuduud xawaareed, meel aanad dhaafin karin xawaarahaaga. Sida wadamo badan oo adduunyada ka mid ay leeyihiin, intaas 100 km/h ma dhaafin kartid, 120 ma dhaafin kartid. Jarmalka haddii aanay calaamad ku hagaysa oo speedkaaga xadidaysa aanay jirin, waxaad ku socon kartaa in alla intii aad awoodo, ilaa aad ka arkayso astaan ama calaamad muujinaysa in speedkaaga aad xadido ama aad yarayso. Calaamadani waxay muujinaysaa in aad ka baxday autobahnkii ama dariiqii highwayga ahaa, dariiqii weynaa, in uu kaa dhamaaday ama uu halkaa ku eg yahay oo aad geli doonto wada kale ayay muujinaysaa. Calaamadan waa mid ka duwan tii autobahnka. Waxaa la yiraahdaa Kraftfahrstraße. Speedka ugu badan aad ku socon kartaa ee ay dawladdu u xadiday waa 60 km/h. waxaana loogu talagalay baabuurta yaryar. Waxa kale oo loo yaqaanaa Schnellstraße ama Autostraße. Astaantani waxay muujinaysaa dhamaadka Kraftfahrstraße, dariiqii hadda aynu soo sheegnay inuu kaa dhamaaday oo aad geli rabto ama aad u gudbi karto wada kale. dariiqan magaciisa waxaa la yiraahdaa Bundesstraße. xawaaraha ama speedka loogu talagalay in lagu socdo waa 100 km/h, 100 km saacadiiba. Way jiraan dad ka badsada iyo in ka yaraysataba, laakiin inta loo xadiday waa 100 km ilaa 120 km/h. waxaanad ku garan kartaa midabka huruudda ah ama yellowga ah ee kuu muuqda. Einfahrt waxa weeye markaad wado weyn sida autobahnka ama Bundesstraße aad rabto inaad soo gasho oo aad kusoo biirto. waxaana lagaaga baahan yahay inaad sidato calaamadda ama nalka birbiryaha loo yaqaano qaybtiisa bidixda, si ay baabuurta kaa horeysa iyo kuwa kaa dambeeya ay ku ogaadaan inaad wadada soo geli rabto. Tani waa calaamadii hore aynu soo aragnay. waa Einfahrt, waa mid sax ah iyo mid qalad ah. waxa uu ku tusinayaa ta hore inay richtig tahay ama sax, ta dambena falsh tahay. ama gaariga greenka ah ayaa saxsan, gaariga guduudka ah ama casaanka ahna waa meel qaldan ayuu kaga biiraya wadada.
astaantan waxay muujinaysaa meeshii aad uga degan lahayd ama aad wadadan uga hadhi lahayd, uga bixi lahayd. Ausfahrt baan la yiraahdaa. Midabkeeduna waa huruud ama yellow. Waxaa laga yaabaa inaad soo gaadhay meeshii aad u socotay. Halka aad wadada uga hadhayso Ausfahrt ayaad raacaysaa. Ausfahrt waa calaamad kale oo tii hore aynu soo aragnay la mid ah. Waana autobanka marka aad ka degayso ama aad ka baxayso.